منصور بن عمار يا وحو ليهي وحا جري صديق أما نين صاحب وأنو أن ليهي نين كاسو أن نين مصرف على نفسه ثم تاب نفتي سنين آد وحد قدبي وددك دنوب تبضان أهاي معاصرة كدبنا وطوبت كيني الله سبحانه وتعالى با يا قفك إساقا كهديي أو تصي إنو حلقا توبت كينو واسدي إنو موقتي وي سيدي ددك لجوغي موقتي وكور رمي منصور بن عمار وحوري ننكاس وحوها نن عبادة بدن وحوها نن هبينكي إلهي وإستاغا سيدا نو موقتا وحوها نن صوم بدن وحان أركي جريه إساغو تهجد هبينكي وتاغن وحان واي بوري مركب مالما أيام واي وحان لي ويري ننكي واجريه أو مريض وحان إمد قريجيسا منصور با ورميا waxaa ii soo baxday buuri gabar uu dhalay waxay tiri xageed u socotaa oo maxaad rabtaa waxaan ku yiri waxaad ku tiraahdaa aabbaha fulaanun yastaadinak ninkii hebel ahaa mansuur yaa idanku weydiisanaya inuu kuu soo galo way u sheegtay waana loo cadmay oo waa loo oggolaaday inuu soo galo markaan soo galay wuxuu yidhi waxaan helay isagoo wasti daarta dhexda guriga dhexdiisa isagoo jiifa ayaan imi firaashkiisii iyo gogoshiisii ku jiifa isagoo oo wejigiisu u madoobaaday isagoo indhihiisu ay ilmaynayaan isagoo bishimihiisii ay qallaleen waa qof jirranood garanayso waxaan ku yidhi faqultu lahu yaa akhii أكثر من قول لا إله إلا الله ولالك يو وحاد بدسا كلمة لا إله إلا الله كلمة عربك يوكو بدي ففتح عينيه إلي بشدة ثم غشيا حلي منصور هالمر أيو عندها كالقاضي مركان ساكو يري حدنا والمير ضبولي فكررتها عليه ثلاثا صدح جربا كعليي أن لها قل لا إله إلا الله كلمة ذاته وحجر ننكي واهضي فقال يا أخي منصور ولالكي منصور هذه كلمة وقد حيل بيني وبينها كلمة أن الله لا إله إلا الله له وكلمة أنيقا إيادا نلكا دحقلي وآنا به كرينين فقلت وحان ربل منصور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قلت له وحان قولي يا أخي ولا لك يو أين تلك الصلاة والصيام والتهجد والقيام أوي صلاة دي بدنيد أنكو أركي جري أوي صومكي أنكو أركي جري أوي قيامكي يتهجدكي هبينكي أدستاغي جرتين أركي جري فقال وحولي وانكي جرنا كان ذلك لغير الله انت أذركي سيوردن إلهي درتي ماهين لغير الله إذن الله أهين بانو سميناهي وكانت توبتي كاذبة وحولي توبة كان كيغنا بينبوها إنما كنت أفعل ذلك ليقال عني وحان أرمها أسميني سلو يرادو هبل وافي عنيهي وكنت أفعل ذلك رياء للناس وحان أرمها أسميني سيان ضدك يسطصه أيو يري فإذا خلوت إلى نفسي وأغلقت الأبواب وأرخيت السطور شربت الخمور وبارزت ربي بالمعاصي مركان وحيري أن كليغي نقضه الباب بدا قوليغان حرنجري داهنا أيوم ماركتي الباب كوان سوع شنجري
khamrada ayaan cabbi jiruu yidhi allah ayaanan macaasi waxba ka qarsan jirin oo wax kastoo macsiya baan la imaan jiray wadumtu calaa daalika mudda sidaasaan ku jiray buu yidhi muddo dheer fa asaabanii almaradu jirraa markay igu dhacday wa ashraftu cala alhalaag waxaan u dhowaaday buuhi inaan halaagsamo oon dhinto faqultu libnatii haadihi naawiliinii almusxaf gabadhaydan hadda albaabka kaa furtay ayaa waxaan ku idhi aabbo markaan arkay anigu inaan tacbaanahay ii keen musxafka kitaabka qur'aanka way ii keentay waxaan idhi allaahumma bixaqi kalaamika fii haada almusxaf allahayow waxaan kugu weyddiisan kalaamkaaga casiiskaa qur'aanka musxafkan ku yaalla haddii aad i caafido dhibaatada i haysata iga dulqaaddo wa ana ucaahiduka anlaa acuuda ilaa denbin abadaa waxaan ballan kugula gel inaanan u noqonaynin dembi dambe fafaraja allaahu cannii wuxuu yidhi marka ilaahay baa iga fayday cudurkii markaan caafimaaday cudtu ilaa maa kuntu calayhi ayaa waxaan u laabtay buuhi haddana wixii aan ku jiray oo min allahwi walladaat xumaantii aan ku jiray ayaan haddana gadaal ugu noqday wa ansaanii ashayطaan alcahda aladii baynii wa bayna rabbii shayطaankuna wuxuu ilowsiiyey buu yidhi ballankii anigii iyo allaah noo dhexeeyey waxaan ku jiray haddana sidaa muddo haddana waan xanuunsaday mar kale oo waxaan u dhowaaday cala alhalaaki waalmowt geeri iyo dhimasho ayaan u dhowaaday wa amartu ahlii fa akhrajuunii ilaa wasti iddaar haddana reerkaygaan amray buu yidhi waxay ii soo saareen guriga dhexdiisa sidii hadda ka hor baa caadadaydu ahayd waxaan u yeedhay musxafkii waxaan aqriyey qur'aankii ka dibna kor baan u qaaday ka dibna waxaan idhi allaahumma bixurmati maa fii haada almusxaf alkariim min kalaamik allahayow xurmada kitaabkaaga qur'aanka kalaamkaaga musxafkan ku yaalla ayaan kugu weyddiistay inaad iga fayddo dhibka i hayeen helaayo oo dhibaatadanna aad iga kor qaaddo faistajaaba allaahu minnii ilaahay wuu iga ajiibay buuhi waa i yeelay waana iga kor qaaday dhibaatadii i haysay maxaa ka dembeeya uma maadaa bacda haada uma cudtu ilaa maa kuntu calayhi min allahwi waadiyaa haddana waxaan ku laabtay buu idhi wixii aan ku jiray oo dhibaato ahaa oo dembi ahaa waxaan halmaamay cahdigii iyo ballantii alla aan la galay haddana waxaa igu dhacay buu yidhi fawaqactu fii haada almarad aladii taraanii fiihi jirradan hadda aad u jeeddo mansuurow waa markii saddexaad oo marka ay igu dhacdo waxaan amray gabadhay reerkaygii inay guriga dhexdiisa ii soo saaraan oo qolka layga soo bixiyo sidii caadadaydu ahayd buu yidhi waxaan u yeedhay musxafkii qur'aankii kitaabkii sidii caadadiisuba hore u ahayd uu u yeedhay ii keena odhan jiray si aan u aqriyo maxaa dhacay markii saddexaad marka falam yatabayan lii xarfun waaxidun minhu hal xaraf oo kitaabkii qur'aankaa ka mida waa aqrin kari waaye waa ii muuqan waaye waan arki waaye waan aqrin kari waaye facalimtu anna allaha subxaanahu qad qadiba calay waxaan ogaaday buu idhi marka alla inuu ii carooday farafactu ra'sii ila asamaa markaasaan kor madaxayga u qaaday waxaana idhi allihii samaawaadka iyo ardada abuurayow ilaahayow iga fayd dhibaatada aan helaayo waxaan maqlay buu idhi marka ka'anna haatifka waxaa la idhaha waxyaabaha qayliya wuxuu yahay aadan garanaynin wax dhawaaqayoo dhahaya tatuubu can الdunuubi idaa maridta وترجع للذنوب إذا برئت فكم من كربة نجاك منها وكم كشف البلاء إذا ابتليت
أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد لهوت قبيقا أما الشعر كوح أقرنا يا مقليب ومعنيه سوامحي تتوب عن الذنوب إذا مرضت مركا جرتو أيا دنبك كتوبت كيني وترجع للذنوب إذا بريت حدنا دنبكي بالغلابا مركا العافمات فكم من كربة نجاك منها ميقو كربو يردباتو يشدك ساريد بو إلهي كافيني وكم كشف البلاء إذا ابتليت ميقا بلاء يجرك وهيسين الله كاقاضي أما تخشى بأن تأتي المنايا ورنيهم ميادا كبقيني قيرين يكوتي ماتو وأنت على الخطايا قد لهوت أذيقو أو كجراء أو لهوغا يلعبك كل حجرتو ذنوبتا يا خطايا قففكي أذيقو معاصدي كل حجرين قيمتك يا بن ميسد مياه قال منصور بن عمار راوي القصة نينكي قصة ورينايي أيا وحوري فوالله ما خرجت من عنده إلا وعيني تسكب العبرات الله كل دارتين نينكا كما أنا بحن مر هدي قرآن كي إساقي اللي سدي لي وان كعي أنيقو وحوري اللي انتو يقصعت فما وصلت الباب إلا وقيل لي إنه قد مات الباب كقرية هدان سيمريو وحان مقليب لنينكي واردنتي وقيريودي وحيل بينهم وبين ما يشتهون يجي وحي جعلايين نينكا يا انت لميدا وحي جعليهين لو سبي ماي ولا كلا دحقل إلهي با أديدي بلانتا وكغا بخاي انتاسو جير إنو الله توبة وافجيو الهداية والتوبة إنو وافجيو ربي واك أديدي سبحانه وتعالى هذا بقى إخواني درسي وين بانو جرى التوبة ليست نطقا باللسان توبة معها عرب كأول رواق كليه إنما هي ندم بالقلب وعزم على عدم العودة إلى الماضي المرير توبة وحوية قلبك أو لقى الندام وضو حسرة إيا عاد كدر أنتو الندام إيا شليته إيو عزمي يقوان إناد كقاردو إناد الدب ونقنينين انت اعظم ارك قبل وان تكون قبل معاينة امور الاخرة اموره اخره هي في فاله هذه انت هذا باللابن بمعنى انت هذا ارك نفط اني كاسقطو قرقردي كو قبتي كهر واني تاي توبد هذا يا اخواني ضد بدن او بدن ايا وحاجرين الهي بلن لقلان إلهي سبحانه وتعالى أي دنبي أي كجران أي كلاب اللمان هذا الله صاييش هذا نكون نقناي حال جدا إن الله سبحانه وتعالى أوضه إنه صنك وافج النبا هداية يسوع نقشة هذا بمحل سوي إن توبة هذا كسبنا تنكاس هل كاس أمورتي سكر ماتي وأنا لك الرح قلي إسقي توبة ديسي ولو ديدي إنو توبة كان